بسم الله الرحمن الرحيم sidee ayaad u ilaalin kartaa araggaaga ama aragtidaada sida jirka uu kaaga baahan yahay inaad ilaaliso oo aad ka taxadarto sida si lamid ah indhahaagu u baahan yihiin inaad mataqaana si wanaagsan uga taxadarto haddaba sideed marka ku ilaalin kartaa aragtidaada ayaan maanta ka hadlaynaa doonayaan ugu horeyn jimicsi joogto ah exercise cilmi baaris la suubiyo waxaa la ogaaday gaar ahaan dadka waaweyn hadday jimicsi suubiyaan gaar ahaan socodka oo kale waxay 70% ka hortagi karaan cudurro ku dhaca dadka waaweyn oo loo yaqaan age related macular degenerations oo waxyeeleeya central visionka ama aragtida dhexe ee qofka sida aad sawirkaanba uga jeedaan marka waa muhiim jimicsiga joogtada ama aragtida mataqaana exercise-ka joogtada number 2 isticmaalka okiyalaasha qoraxda ama sunglasses-ka isku day mar walba oo aad ka baxayso gurigaaga ama aad banaanka u baxayso inaad xirato sunglasses ama okiyalaasha madmadow aragga mataqaana madmadow qoraxda laga xirto sababtoo xitaa qoraxdu waxay leedahay wax loo yaqaan ultraviolet lights-kana waxyaalo ba'an ay u geysan karaan indhaha marka isticmaalka okiyalahan waxay yareyn kartaa marka khatarta ah inay kugu dhacaan cudurro indhaha gaar ahaan cudurka ugu badan ee caadka ee loo yaqaan cataract-ga saad sawirkaanba uga jeedaa marka in isku day mar walba guriga banaankiisa ama meel aadayso inaad xirato okiyalahan mataqaana qoraxda loogu talagalay number 3 cunno caafimaad leh oo isu dheelitiran cunooyinka badanaa laga helo vitaminiska iyo macdanta si ay issues mataqaana functioning ama shaqadeeda si fiican ugu socoto ayaa qofka la rabaa cuntooyinkiisa joogtada inay ku jiraan sida ukunta ama baydhka kalluunka karootada tuunta basasha iyo wixii lamid ah inay isu day inay mar walba cuntooyinka ku jirto ama maalin walba aad cunto haddaad qudrad dheeriya sida canabka iyo strawberry-ga aad heli kartana way ka sii fiican tahay afar baar indhahaaga inaad isku day inaad mar walba baaritaan ku suubi haddaba sababtu xitaa waxaa jira cudurro badan oo indhaha ku dhaca oo aanan lahayn calaamado uu qofka ku garan karo marka sida kaliya uu qofka ku garan karo inuu cudurkan qaban waa inuu dhakhtar indho u taga ama isu soo baara haddaba baaritaanku aan kala qaadno kuwa aan ka bilaabno dadka waaweyn 45 sano iyo wixii ka badan jiro cudurrada qofka waxaa la yiraahdaa baaritaan la suubiyo 6 qof ba dadka ka weyn meelaha 45 sano hal qof ka mid ah qabo dhibaatooyin xagga aragga saas darteed ayagu waa muhiim si gaar ah qofka mar hadduu 45 sano ka weyn yahay in la geeyo ama hadduu awoodo uu tago 6 biloodba hal mar inuu tago oo soo jeegay labo dadka isticmaala okiyalaasha aragga oo aragga fog ama aragga dhow waa inay ayagana sanadkii hal mar soo jeegarayaan oo indhahooda baaritaan ku soo suubiyaan soo ogaadaan waxa iska bedela araggooda sidoo kale dhalinyarada araggooda iska caadi yahay xitaa normalka yihiin ugu yaraan 2 sano ayaa loo baahan yahay hal mar inay araggooda soo jeegarayaan iyagana inta waxa ku dheer carruurta ka yar 10 sano waxaa jira cudurro badan oo qaarkood cudurro la yiraahdo amblyopiyada kale waxay ku dhacaan ciyaalka yaryar oo 10 sano ka yar cunuga iyo waalidkiisa marka ma ogaa karaan cudurkan inuu cunugu qabo iyo in kale wayna adag tahay runtii cudurkan in wax badan laga qabto haddii cunuga dhaafo mar 10 sano marka sidii kaliya lagu ogaan karaan waa in mataqaana la baara marka waxaa la baaraa marka ugu horeyso qofka cunuga markuu jiro 6 bilood in hal mar la jeegaro dhakhtar indho loo geeyo inuu cudurkan qabo in kale la soo ogaado waay kadib cunuga 3 sano jiro asagana hal mar la geeyo la soo baaro inuu cudurkii develop gareeyay oo uu qabo in kale kadibna 5 ilaa 6 sano markuu gaaro ayadana hal mar la soo ogaado waxaana la ogaaday ku dhawaad 10 ilaa 15% ciyaalka aanan gaarin iskuulka inuu cudurkan ku dhaco sidoo kalena 25% ciyaalka gaaray iskuulaadka inuu cudurkan ku dhaco marka waa cudur aad halis u ah marka waxaa fiican inaad ciyaalkaaga aad geyso dhakhtar indhaha si loo soo jeegaro sababtoo xitaa way adag tahay in la ogaado inuu cudurkan qabo iyo in kale haddana dhakhtar indho loo geeyo intaas waxa ku dheer
balwadda oo ayadana aad halis u ah oo mataqaanaa siishada iyo sida sigaarka kale cudurro badan oo indhaha dhaliyaan marka isku day inaad ka hortagto inaad yeelato balwad noocyadan oo kale ah intaas waxaa ku dheer nadaafadda nadaafad darradu waxay keentaa cudurro badan ayadana oo indhaha sida allergiga ku dhaca indhaha oo kale oo ay nadaafad darrada badan ay keento iyo mataqaanaa ilqaleelka oo kale dry eyes iyo cudurro kale oo badan oo la mid ah marka isku day in jirkaaga iyo gurigaaga iyo deegaankaaga oo mar walba uu nadiif ahaado haddii lacala ay dhacaan wax isbedelo xagga aragga waxaan kugu talinayaa sida ugu dhaqsiya badan inaadan dhayalsan oo dhakhtarka indhaha kugu dhow aad u tagto waad mahadsantihiin insha Allah taala sii share karee si dadka